hubka ka soo furtay aniga الله لعي مرة من المؤمن سمال جولستا waa cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo dabaaldeg iyo farxad la jooga deegaanka Nuur Dugle ee gobolka Shabeellaha Dhexe cutubyadan waxa ay saacado ka hor dagaal adag la galeen kooxda qawaarjay al-shabaab oo soo weerartay deegaanka Nuur Dugle ee gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa markii ay cagta mariyeen kooxihii qawaarjta ahaa oo ay ka soo furteen hubka iyo sanadaha military midadkana ay ka reebteen ayaa waxay dabaaldegyo waaweyn ku qabsadeen gudaha deegaanka Nuur Dugle ee gobolka Shabeellaha Dhexe dhaanto iyo farxad aad u weyn ayaa ciidamada laga dareemayay waxayna soo bandhigayeen qoryihii ay ka furteen kooxda nabadiidka ah al-shabaab deegaanka Nuur Dugle ee gobolka Shabeellaha Dhexe haatan waa u deegaanka Nuur Dugle ee gobolka Shabeellaha Dhexe haatan xaalkeeda aad ayuu u degan yahay waxaana afarta koono ka jooga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka saad arkaysaanba ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa guud ahaanba gaaf wareegaya deegaanka iyo hareerihiisaba waxay ciidamadu sidoo kale ay ugu baaqayaan shacabkii deganaa deegaanka Nuur Dugle inay ku soo laabtaan maadaama dagaal kooban maanta uu ka dhacay dadkuna ay ka barakaceen cutubyadan oo si weyn maanta ugu dabaaldegay gudaha deegaanka Nuur Dugle kadib markay jab xoogan iyo gaarsiin argixisada al-shabaab ayaa waxa ay si weyn ay maanta halkaasi fantastiyo ugu sameeyeen kadib guulo ay ka gaareen dagaal ay la galeen kooxda nabadiidka ah al-shabaab Nuur Dugle waxa maanta si weyn ugu dagaalamay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay gadaal ka kaabayaan kuwa deegaanka waxayna sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay jab xoogan ay gaarsiiyeen kooxdii maanta soo weerartay deegaankaasi 14 nooca qoryaha loo yaqaan BKM iyo 8 qori oo nooca garabka laga riday ee BG-ga ayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka furteen kooxda qawaarjay al-shabaab sidoo kale kooxda nabadiidka ah waxa laga furtay dhowr qori oo nooca BTM-ka ah ee garabka laga rido iyadoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qoryahaasi guud ahaan gacanta ay ku hayaan kooxdii deegaanka soo weerartay ayaa ka cararay halkaasi kadib markii cashir xoogan loo dhigay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa ay waqtigan ay idin la hadlayo ay howlgallo baaritaano ah ay ka wadaan gudaha deegaanka Nuur Dugle iyo hareeraha tuulooyinka hoostaga deegaankaasi ciidamada ayaa baaraya goobihii ay ka soo abaabuleen kooxda weerarkii ay ku soo qaadeen deegaanka Nuur Dugle waxayna sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay gudaha u galeen difaacyo ama godad ay nabadiidku meel ka baxsan deegaanadaasi ay ka qoteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo si weyn ugu hubaysan qoryaha noocyadooda kala duwan iyo hubka daran dooriga u dhaca korna ay ka caawinayaan diyaaradaha dowladda Soomaaliya ka taageera dhanka cirka ayaa waxa ay haatanba howlgallo xoogan ay ka wadaan tuulooyin hoostaga deegaanka Nuur Dugle xilligan aan idin la hadlayo waxa banaanka deegaanka Nuur Dugle ama meel 18 kilomitir u jirta deegaankaasi ka soconaya duqeymo dhanka cirka ah oo ay wadaan diyaaradaha dowladda Soomaaliya ka taageera dhanka cirka waxaana la sii baacsanayaa farxadka kooxdii nabadiidka ahayd ee deegaanka soo weeraray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa ay u sii ruqaansadeen deegaanadii iska abaabuleen kooxdan iyadoona warku intaasi ay ku darayaan in dhufaysyo dhowr ah ay ciidamadu arkeen ayna ku guuleysteen inay burburiyaan deegaanka Nuur Dugle waxaa weerar adag ku soo qaaday kooxda qawaarjay al-shabaab iyadoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay maanta dagaal jilbaha la isku laabtay ee la galeen kooxda qawaarjta ah dagaalkan waa uu ka duwanaa dagaaladii hore waxayna ciidamadu si xeeladeysan deegaanka ay uga baxeen iyadoona kadib dagaal xoogan oo dhacay oo saacado qaatay ciidamadu ay ku guuleysteen inay gacan ku haynta deegaanka si wanaagsan ay ula wareegaan iyadoona kooxihii soo weeray kala bar halkaas lagu xasuuqay waxaana laga furtay hub aad u tiro badan iyo gaadiid dagaal mid kamid ah saraakiisha oo haatan la xiriirin ayaa inoo xaqiijiyay in deegaanku uu degan yahay waxa uu sheegay in daafaha deegaanka Nuur Dugle iyo deegaanada ku dhow ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed haatan ay gaaf wareegayaan isagoona sheegay in gaadiidka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed noocyada kala duwan ay u baxeen dhowr tuulo oo hoostaga deegaanka waxa uu carabka ku dhuftay in haatan ay howlgallada ay socdaan laguna raad joogo goobihii laga soo abaabulay weerarkii deegaanka Nuur Dugle maanta ay ku soo qaadeen kooxda qawaarjay al-shabaab
deegaanka Nuur Dugle waxa uu qayb ka yahay deegaanada ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe muddo dhowr sano ka hor waxa gacanta ku dhigay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxayna ka faramaroojiyeen kooxda qawaarij ah ee Al-Shabaab oo deegaankan si weyn uga samri waayay ayaa dhowr jeer hore waxa ay isku dayeen inay dagaalo culus ku soo qaadaan balse ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo hayay xogta weeraradan ayaa si feejigan uga hortagay dagaalkii nabadiidku ay ku soo qaadeen dhowr jeer deegaanka Nuur Dugle ee gobolka Shabeellaha Dhexe saraakiisha ciidamada oo aan la xiriirnay ayaa sidoo kale waxay inoo carbaabeen in dagaalku maanta uu ahaa dagaalkii ugu cuslaa iyagoona sheegay inay soo bandhigi doonaan meedadka kooxda qawaarij ah Al-Shabaab iyo hubkii saanadihii military ay ka furteen kooxda sarkaalkan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shacabka ku dhaqan deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe qaasatan deegaanka Nuur Dugle tuulooyin ku dhow in looga baahan yahay inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka adag kula jira kooxaha nabadiidka ah Al-Shabaab guud ahaan waxaa degan deegaanadii maanta lagu dagaalamay waxaana gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo si weyn uga feejigan weerarada gurcan ay nabadiidku ku soo qaadayaan difaacyada hore ee ciidamadu ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale dhaqdhaqaaqyo xoogan ayaa guud ahaan waxay ka soconayaan gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoona ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaankaba ay gulf xoogan ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa si weyn uga soconaya dhaqdhaqaaqyo ay wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka wararka aynu ka helino deegaanada Warshiiq iyo deegaano ku dhow ayaa waxay sheegayaan in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay abaabulka ugu xooganaa ay ugu jiraan sidii ugu dhaqaaqi lahaayeen goobaha farkutiriska ah ee lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaalaysanayaan kooxda Al-Shabaab xilligan oo habeenimo ah waxaa duqeymo xoogan ay ka soconayaan hareeraha deegaanka Nuur Dugle oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaalaysanayaan firxadka kooxda Al-Shabaab mid ka mid ah dadka deegaanka oo nala soo xiriiray ayaa inoo xaqiijiyay inay maqlayaan hugunka madaaficda waaweyn ee diyaaradaha ay ridayaan gantaalada waxayna sheegeen in meel u jirta 12 kilomitir ee ka maqlayaan ayna arkayaan duqeymaha ay wadaan diyaaradaha dawladda Soomaaliya ka taageera dhanka cirka sidoo kale dagaalka waxaa qayb ka ah ciidanka deegaanka oo si weyn isku abaabulay iyagoona ciidanka deegaanku ay ku sii baxeen ama ay ku raac joogaan halkii laga soo abaabulay weerarkii maanta kooxda ay ku soo qaaday deegaanka Nuur Dugle ee gobolka Shabeellaha Dhexe waayadanba Shabeellaha Dhexe waxaa si dardar looga soconayay howlgallada ballaaran ay wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamaduna dagaalkii maanta waxa ay ka gaareen guul aad u sareeya daawadayaal dagaalka maanta wuxuu ahaa dagaalkii ugu cuslaa ee abid ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyaga oo ka feejigan weerar kasta oo ay soo qaadayaan kooxda nabadiidka ah ay si feejigan uga hortageen kooxaha argagixisada ah oo doonaya inay dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe cutubyo aad u fara badan oo ciidanka gorgor ah ayaa ku sii qulqulaya goobihii maanta lagu dagaalamay waxayna cutubyadaasi garab ay u yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo ku wajahan deegaanadii maanta lagu dagaalamay dhowr jiho ay ciidamada gorgor ay ka galgaleen deegaankaasi waxayna ciidamada gorgor oo ku hubeysan gawaarida waaweyn ee beebayaasha iyo hubka noocyadiisa kala duwan ay daafaha deegaanka Nuur Dugle ay ka wadaan raadjoodka ama raadinta kooxdii soo weerartay deegaankaasi ciidanka gorgor ayaa ah ciidan si weyn uga qayb qaatay dagaalkii maanta lala galay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab waxayna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed khaasatan commandoska gorgor ay ahaayeen kuwii maanta doorka fiican ka qaatay dagaalkii lala galay nabadiidka Al-Shabaab sidoo kale waxaa dagaalka qayb ka ahaa ciidamada commandoska danab kuwooda jugta culus oo si weyn uga qayb qaatay in magaalada banaanka looga riixo kooxda argagixisada ee Al-Shabaab iyadoona ciidamadu sidoo kale ay maanta ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan maleeshiyaad dhaawac ah oo ka tirsan Al-Shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waayadanba waxa ay gulf xoogan ugu jiraan sidii deegaanadaasi ay uga xoreyn lahaayeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab xilligan ay idin la hadlayo dabaaldegyo waaweyn ayaa ka soconaya deegaanka Nuur Dugle oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadib guulo waaxad leh ay ka gaareen dagaalkii maanta ay la galeen qawaarij Al-Shabaab daawadayaal guulaha ciidamada ay ka gaareen dagaalkii maanta argagixisada ay la galeen iyo qaabkii ciidamada nabadiidka ay uga hortageen halkan ayaad ka daawan doontaan akhbaar kasta oo ku saabsan guulaha ciidamada xoogga dalka fadlan hadduu channelkeenu kugu cusub yahay subscribe inoo saar